السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سومالي وإذن سلام ميل كستو الدنيا دا أتكجوكتان كورونا فيروس الله نقدر القاضي إن شاء الله بإذن الله. راح إماتي إن شاء الله ونقدر قدونا بالك وراح كلالكو كعب سدالة أيال يري الحمد لله إلهي نقدر القاضي بإذن الله. مركا سومالي وح إذن هاي مانت sheekaan idin haya sheekadana hal video kuma soo koobi karo waxaan rabaa inaan part 1 ka qaado ilaa part-ka uu nala gaaro insha Allah biidhnillah. qofna uma gafayo qofna ma caayayo waa maxaa la dhahaa arrin ku saabsan in gabdhaha Soomaalida ay ka feerajignaadaan. Girls be vigilant please. waxa oynayo maalin kasto oo qaaqda ku hayo ama la leeyahay wax buu gubay ama laga tagay waa haweenka Soomaaliyeed waxaana inoo geysay jaahilnimo. marka intaas war hooy wiilow aan adiga kuguma wadiyo dadka iska soo dhax saarin hadaa tahayna rectify yourself hadaad ahayna maba tihidba. marka ani gabar Soomaaliyeed inay oyso marraba mana arki karo mana u gogsan karo wallahi billahi been ma sheegayo. youtube-yada markaan daawanayo haddaan arko gabar ooynayso waa iska ooya because waxa aniga rabin in la igu sameeyo marraba gabar Soomaaliyeed in lagu sameeyo. marka gabdhow Soomaaliyeed waxaan bilaabay musalsal ma dhihi kari but sheekadan aan bilaabay wacyigelintan aan bilaabay waxaan rabaa ilaa 100 hana la gaarto haday rabto insha Allah waa sidaan u bilaabay. marka Soomaaliya waxay dhahdaa ooda si u kala horeyso ayaa loo kala qaadaa. taas oo ka soo gudbayna hadda waxaan dhahayaa canjeerada si u kala horeyso ayaa u kala qaadayna. marka dhibaatada gabdhaha Soomaaliyeed lagu haayo way kala weyn tahay way kala sareysaa degrees ay kala leedahay. waxaan ka soo bilaabaynaa midda ugu daran ayaan hadda ka soo qaadaynaa oon part 1 ka dhigani doona insha Allah. wiilalow ayaga idinkana nagu soo biira halkan ka faa'iideysta ma fahantay comments-ka soo dir channel-kan iyo video-gana please channel-kana subscribe saar video-gana insha Allah maxaa la dhahaa share garee say wiilal badan iyo gabdho badan oo hurdaayo daahiye adduunyada ka saaran ee ugu cilmi qaataan ama ugu cibro qaataan insha Allah. marka waxaan ka bilaabaynaa gabadha Soomaaliyeed gabdhaha kale ma dhahayo gabdhaha kale farta ugu yeeran nimanka. anaga diin baan leenahay dhaqan baan leenahay dhaqanka aan leenahayna diinteena ayaa laga soo dhaxbixiyay oo ma aha mid dhalanteed ah ama wax ma jirta ah ma aha oo wax jiro taa ka gudbi mayno. and we are not against our traditional and our deen but anagana we deserve our credits kenya rabnaa. marka wiilihu Soomaaliyeed gabar baad shukaansatay waad jacayl ma dhihiye gabar baad adaa jeclaatay way ku aqbashay cidooday ku geysay waa lagu siiyey waad aroosatay bal imagine waalidkii ku dhalay gabadha ayaa gabadhan kugu aaminay guri baad geysatay cidla ah waad ku aroosatay ilmay ku dhashay ma u quuri waysay inaad gabadhaas maalintaad rabtay inaad ilbaabka ka baxdid intaad gabadha la fariisato u sheegtid 4 ayaa alla noo baneeyay 4 and we are not against anaga haddaan dumar nahay we are not against. what we are against is nimanka anagu ogeen guursanayo taas ayaan ka soo horjeedna. laakiin gabar Soomaaliyeed look the worst scenario thing oo kugu dhacayo marka tirnaagan guursanayo maxaa waay ama ifuray ku leedahay waryaa ifur okay ilaa aadan xaawi soo jirin ifurtaas markaad waad masiir aqli hadaad leedahay xayawaan ahayn waad masiirtiraysaa gabadhii masiirtidaad u samaynaysaa waad mamaawilinaysaa gurigaad oga baxaysaa markay soo degto anaga masaakiinaan nahay wallahi billahi masaakiinaan nahay waad ka baxaysaa haday laba oday mise aabaheed iyo waalidkeed hadaa usoo wadatid gabadhii meesheedii laakiin dhageyso gabadhaadii ama umul ah
hadda sheekaa jirtaa dhacday oo gabadhii ay ku dhacday ka sheekeynaysay. insha allah videoyaashaydan insha allah intaa hadda bilaabay ayaan soo kor saari doonaa. waxay tiri ninkaygii siduu iiga baxay 3 weeks markuu iga maqnay ayaan wacay. markii kale telefoonka waan wacaya la igama qabanayo, messagean diraya uu akhrisanayo iska dhiganaya. waxaan dhahay 3 week markay dhamaato iga qabtay tiri telefoonkii. markaasaan war maxaa ku daar, war maxaa ku hel, aroosaan ku jira. aroosad ku jirta naagtaadi waa umul, aroosuu kale, aroosuu ku jira. waa alif la kordhabe iyo kula hoos dhabe. soomaali nimankeeda dhan waa isku mid. war maad garani wayse gabadha intaad ka hor imaatid inaad tiri walaalay aniga naag ayaan raba inaan guursado, adiga ma dhalin shalay cid baad kasoo wadatay gabadhan. walaalay aniga waxaan rabaa inaan naag guursado. okay ka sug ifur bay ku tiri. haddaad wax damiir leh ama aqli leh aad tahay, you can do means and ways inaad naagtaadana reebatid naagta kalena aroostid. maad sameynin. gabadhii sheekadeedan sii waday. waxay tiri wiilka tukaan buu lahay, tukaankii ayaan ugu tagay one of the days isagoo gabadhii uu shukaansanayay tiri inay tahay aan u maleeyay. ayaan tukaankii ugu tagay anoo doonanayo biilkaygii. markaasaan waxaan dhahay tiri walaalow ilmihii baan kasoo tagay, lacagta ii dhaqso, magaaladan dan yar baan ka leeyahay. ilmahee ayaa lagu yiri. ileen gabadha kale u sheegay inuuna ilmo dhalin weligiis xaasna lahayn. marka wiilalyahow soomaaliyeed isdaba qabta. waad aragteen maalmahan gabdhihii soomaaliyeed way idinka dhargeen. wallaahi ajaanibtay guursadaan, idinkaana kasbade. wallaahi billaahi soomaaliyey bal eeg gabadhan adaa shalay aday macaanay kuu ahayd, aday gabar yar kuu ahayd. maanta markay 2 ilmood kuu dhashay, 1 ilmood, 3 ilmood, way aad u daraabaysaa, way u bahdilaysaa. yay u degan tahay? aabeed may u degan tahay? may aday ku degan tahay? waad kari waysa, gacanta qabo u ku celi faamilkeedii aad kasoo wadatay shalay. kac ku celi, iga daba reebta dhe gabadhiin instead of a depression ku ridaysa. 2 meel bay haweenka ay depressionka uga dhow yahay inay ku dhacaan. waa markay uurka tahay iyo markay umusha tahay. markay uurka tahay iyo markay umusha tahay, labada jeer ayay u nugushahay inay depression ku dhaco. gabadha hadday is eejiso ama suicide ay samayso, yaa ka mas-uul ah? adaa ka mas-uul ah. marka wiilalyahow soomaaliyeed waa sidaan u bilowday. haddaad wax ka qaadanaysiin waxygelinkan iyo awarenesskan iyo waanadan wax ka qaata. way ahayn kuwa guryaha idin joogana way idinka soo cararayaan. waa sida nila bilaabay, gubitaana nila bilaabay. hadda adaa kasbade in markaad imaatid adoo jiifto biyo lagu karkariyo lagugu shubo. waayo haddaad gabadhan ammaan ay kaa helayso, gurigeeda ay ku faraxsanta, ammaan ay kaa helayso, jacayl ay kaa helayso, kuumay qoorteen dab. gabar soomaaliyeed dab kuumay qoorteen. laakiin adaa you pushed her to the wall and you get what you deserve. marka soomaaliye intaasaan idinka dhaafa video inuu igu dheeraado ma rabi, because nuxurkaa ka tagaya hadduu dheeraado. insha allah this is part 1. waan isla bilaabayna insha allah. comments, shareka, subscribe-ka, thumbs up-ka kudi idinka raba biidnillah. soomaaliya saasaan idinkaga tagayaa iyo weyga soo socdo biidnillaahi baari. ilaahay coronavirusna ha naga dulqaado biidnillah. rabadaan anagoo caafimaad leh allah hanu isoo geliyo insha allah. intaas iyo nabadgelya idinkaga tagayaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.